labadiinaba waad ka warqabtaan waxa ay diinteennu ka qabto takoorka inaad u diidaan cali inuu guursadana waa takoor aan geed loogu soo gaban waana khalad dhinaca diinta haddii loo eego annaguna waxay ku salaysan tahay dhaqankeennu diinteenna ayaa wax waliba ka horraysa marka dhaqankan xunxun ee aan sal iyo raad toona lahayn inaad ku kacdaan waa wax fool xun laakiin sheekh roble dhaqankeenna wuxuu dhigayaa in hadba inta isku qabiilka ah xeer xoosaad lahaadaan taasi oo ah in la isku hayo beesha laakiin inaad cali ka hor istaagtaan inuu guursado maryama sababtoo ah waxay ka soo jeeddaa qabiil laga tiro badan yahay waaba takoor aan geed loogu soo gaban taasina diintu way diidday waana khalad in la takooro qofka bini'aadanka loo takooro beelyarow ka dhasha iyo waa laga tiro badan yahay iyo waa khalad sidaan ayuu dhaqankeenna soo jireenka ahaa maama cali ordoo balshaah noo soo samee mashaah kale ayaad rabtaa weliba annagoo ka hadlayna arrin xasaasi ah haddii aad rabto inaad wada hadalka ka sii mid ahaato marka hore waa inaad isdejisaa ee ma noqon kartaa qof deggan ee si deggan u hadlo waa yahay sheekh marka waxaan kuu sheegaynaa waa in ay jirto sabab cad oo aan u diidayno inaan guursanno qabiilada la heebsooco ma waxaasaa ah inaan iska dhega tirno marka dooddeennu waxa ay ku saabsan tahay diin iyo dhaqan horta yaa la uumay oo la abuuray marka hore ma bini'aadamka ayaa la uumay mise eebbe ayaa uunkan iska leh gebi ahaan oo asagu sameeyey eebba ayaa wax uumay haddii allihii uunkan abuuray ee sameeyey leeyahay yaan laystakoorin annagoo bini'aadam ah sideen uga hor imaan karnaa qawaaniinta iyo sharciga alla uu soo dejiyey waa allihii uunkan asagu lahaa soo qalad maah waan ku fahmay sheekh roble balse waan xiirinayaa xigmadda aad ila wadaagtay haye alle xigmaddiisa hana waafajiyo haddeer anigu waadan ka sii tegaya ee nabaday waayahaye nabadgelyo dirir nasiibkaaga ayaa yimid xor ayaa tahay maanta waad bixi kartaa maxaa sidee aniga ayaa dib uga laabtay eedaymihii aan kugu haystay dirir sabab maxaa rabtaa saaxiib su'aalaha maaha inaad i weyddiisid adigoo qolka maxbuuska weli ku jira marka hore ka bax kadibna hadalka bilow mooge haddii aad u malayso inaan joojin doono inaan soo arko carruurtayda waad ku qaldan tahay middaas orod dirir albaabku wuu furan yahay xorriyaddaada u orod nabaday saaxiib khayr ayaan kuu rajaynayaa xorriyaddaada u orod mar kale ayaan lagu soo qaban waryaa dirir erayada mahadsanid ma taqaaninaya sidaadaba qofku hadduu asxaan ku sameeyo waa loo mahad celiyaa oo maxaan mahadsanid kuu dhahayaa mooge xabsiga aan kaa soo saaray hadda baanan xabsiga kaa soo saaray marka ii mahad celi ku riyo arrintaas ku riyo adigu waxaad tahay saxtisaar ah waxaan awoodaa in aan mar kale ku xidho oo aan kugu celiyo xabsiga war mahadsanid idhe waryaa waa yahay mooge waad ku mahadsan tahay labadii maalmood ee aad xabsiga igu haysay intii aan halkaasi ku jiray wax badan oo nolosha iyo xaaladda aan ku suganahay ku saabsan ayaa ii kala caddaaday marka waa mahadsantahay xiise uma qaba hadalkaaga waryaa dirir anigu waxaan hay shakhsi toobadkeen ah ma garatay waa yahay mooge waad ku mahadsan tahay sida aad wax iigu kala caddaysay waxaad i tustay ilaa xadka aan u baahanahay inaan ilmahayga la joogo marka hawshan kadib waxaan u tegayaa golaha odayaasha si la ii siiyo ilmahayga hani iyo hanad wah dib u heshiisiinta qabiilka way socotaa weli oo sheekh roble wuxuu la soo hadlay cali aabbihii iyo hooyadii oo waxa uu sheegay waxa ay diintu ka qabto istakoorka cali hooyadii weli waxay ku adkaysanaysaa in la dhooro xeerka u yaalla qabiilka maxay kula tahay adiga fadlan nala wadaag fikirkaaga